waxaan u baxayaa safar fasax caadi ah oo sida ka warqabtaan golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu galay fasax caadi ah oo 8 toddobaad ah markaa saadaradeed safarkan u baxaya waa safar fasax caadi ah waan laga yaabaa wixii shaqeeya aan qaban karay inta fasaxa ku jirana haddaan dalal kala tago baarlamaanadooda iyo saaxiibo badan oo halkaa joogaba inaan la kulmo oo arrimaha Somaliland iyo danaheeda kala hadlo haddii Ilaahay ka dhigo la socoteenba in khilaafaadkii yaryaraha ee golaha wakiiladu soo afjarmay arrintaasina iska dhamaatay oo ay ku dhamaatay safgarad wixii la hadalhayo dhamina iska dhamaadeen shirgudoonkii golaha wakiiladuna oo sidiisii caadiga ahaa shaqadiisii caadiga ahaa wax waliba ay ku soo noqonayaan saaxiibaday gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo gudoomiye ku-xigeenka labaadba hore waxay ahaayeen garbahayga haddana waa garbahayga wax kastoo xurmaa ama awooda aanu lahaynna sidii baanu wada leenahay wixii aanu leeyahay iyaga leh waxay u leeyihiin aniga leh wax taagan oo issue ka taagan oo ka baaqayna ma jiro golaha guud ee Somaliland iyo shacbiga reer Somaliland bana runtii go'aankaas horena waan u sheegnay haddana waa ugu celinaynaa inaanu go'aan ka qaadanay sidiisana uu ku fulayo qarankana culays badan uu ka qaaday taasina ka mid noqon doonto guulihii Somaliland gaadhay iyo ka mid noqon doona waddankeena waxa dhaqan u ah bani aadamku shaqada la isku qabtaa laakiin mar walba caqliga iyo tanaasulka shaqeeya markaas taas waxay kaga duwanahay dalal badan inuu jaarnahay arrintaas oo marka dib yimaado ama xabad ku dhamaado ama dagaal ku dhamaado